آم، بسم الله الرحمن الرحيم. tani waa qaybta koowaad ee barnaamijka la magac baxay dhaqan dhaqaalaha Soomaaliyeed. Barnaamijkan dhaqan dhaqaalaha Soomaaliyeed oo runtii inoo socon doona haddii Allah awoodda leh ka raali ahaado inta lagu guda jiro sanadka 2020 si ay ummadda Soomaaliyeed uga faa'iido wax fara badan ayna markaasna uga faa'iideysato roobabka mahiigaanka ah ee la kowsaday ama hordhac u noqday sanadka 2020 taas oo sheegaysa ifafaalo wanaag iyo samaan ah iyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash aan nagu soo foodle oo soo socota. sidaas darteed waxa uu barnaamijkani mar walba inoo ahaan doonaa insha Allah mid joogto ah usbuuc walbaba marka ka baxa ilaha wargaarsiineed ee markaas uu ku habboon yahay loogu talagalay. waxaana aan mar walbaba kusoo bandhigi doonaa haddii Allah awoodda leh ka raali ahaado in aan soo qabanno qodob ka mid ah dhaqan dhaqaalaha oo ah kobcinta dhaqanka dhaqaalaha ku salaysan ee Soomaaliyeed ama dhaqaalaha dhaqanka ku salaysan si ay markaas ay u noqoto ummadda Soomaaliyeed mid barwaaqadeeda beegsata. barnaamijkan dhaqan dhaqaalaha oo magaciisa hore aan u sheegay waxaa la yiraahdaa socio-economics oo ah social economics labada oo la isku daray isku noqonaya. waxa aan marka maanta ku gudagalayaa haddii Allah awoodda leh ka raali ahaado qaybta ugu horeysa oo ah asalka iyo unuga barnaamijka. wax kasta oo jira waxa asal iyo unug u ah horta in ay jiraan wax loo tixraaco oo wax ay ku salaysan yihiin. haddaba marka dhaqaale la yiraaho dhaqaaluhu waa in uu helaa meel uu ku fadhiyo oo guri uu fadhiyo uu helo oo waxa ay tahay fallaarta qofka meel walba uga taalay baa waxa ugu habboon midda salka ugu taala in laga bixiyo. marka si salkii looga dhiso oo waxa la yiraahdo grassroots economics oo dhaqaalaha ka soo bilowda gunta iyo jirida ma ahan gunta ka soo bilaabanaya. dhaqaalahaas marka qaybtiisaasaan abaaraynaa waa home economics waxa la yiraahdo. home economics si aan u fasiro waxaan u baahannahay in aan macnaha tafsiirka economics aan fasirno oo ah dhaqaalaha. economics marka fasirkiisu waxa weeyaan ereyga economics waa erey asalkiisu uu yahay Greekii hore oo macnihiisuna uu yahay laba erey oo isku dhagan oo midka koowaad uu yahay oko. waxa ay tahay marka macnaheedu waxa ay tahay waa waxa la yiraahdo guri weeyaan. oko waa house guriga weeyaan. normal waxa ay tahay sida customka waxa caadada ah iyo sharciga. waa sharciga iyo caadada iyo nidaamka iyo dhaqaalaha guriga weeye economics. kelmadda economics marka macnaheedu waxa ay tahay maamulka guriga, dhaqaalaha guriga iyo nidaamka iyo sharciga qoyska guriga ka jira weeyaan. sidaas ayaa economics macnihiisu yahay. ka ayaa haddana maadadu markii ay sii balbalaaratay oo jaamacado badan laga sii dhawaa sii faaftay baa waxay noqotay in la yiraahdo maadadaas marka qaybo ay yeelato faracyo badan yeelato. faracyadeediiba farca ugu horeeya asaaska u ah baa waxa uu noqonayaa marka home economics dhaqaalaha guriga. dhaqaalaha guriga marka aan u dhaadhacno marka waxa uu yahay waa mid lagu qeexo in uu koobayo 4 jiho. 4 jiho waxa ay kala yihiin waa shakhsiga. waa shakhsi marka koowaad in uu wajahayo. marka labaadna in uu wajahayo qoyska. waa qofka kadibna qoyska ayuu wajahayaa. kadibna community waxa la dhaho oo ah qolada qabiilka iyo qowmiyadda meesha degan. group kooxda meel isla degan weeyaan. marka afraadna waxa uu wajahayaa waxa bii'ada ay ku dhex jiraan. intaas baa marka oo la isku qoofalay baa la yiraahdaa waa macnaha home economics oo ah qofka qoyska macnaha kooxda qowmiyadda iyo bii'ada ay ku dhex jiraan. waxyaalaha ku meeraysan ama ku hareeraysan ama waxyaalaha ayaga noloshooda ku meegaaran oo dhan.
isaga marka halkaa isaga waxaa soo gelaya home economicska qaybaha hoose oo ka baxbaxa yaa waxaa ugu horeeya waxa kow ah waxyaalaha daruuriyaadka ah oo ah qofku in uu mar walbaba uu u baahan yahay uusan ka maarmi karinin. waxyaalahaas daruuriyaadka ah baa waxaa ugu horeeya cunto. marka waxaa loo baahan yahay waa in la helaa cunto kadibna nafaqo. cunto marka la helo oo bal naf ay gashayso cunto iyo biyo la helo kadib waxaa imanaya nafaqa imanaya. nafaqadii marka ay imaato waxaa imanaya caafimaad oo waa dhaqaalaha guriga sida loo sameeyo. waxyaalaha loo baahan yahay in la helo waa cunto, waa nafaqo, waa caafimaad, waa maal oo ah markaas u kala baxa qofka personal finance waxa la dhaho qofka maalkiisa dhaqaale iyo maal baa la kala saaraya. maalka soo gala haddana maalkaas baa marka waxaa kasii farxamaya waxa ah ilaha dhaqaalaha. maalka meesha laga helayo, meesha laga kasbanayo, intaas baa sidaas marka muhiim u ah oo in la helo ay tahay. waxaa ku xiga markaas waa gurigii unbaa laga hadlayaa. waxaa la yidhaha maamul guriga iyo maarayn iyo qorshayn iyo qaabayn iyo qoondayn iyo aqoolid iyo dhaqaalayn. intaasoo dhan oo laysku daro markaas baa waxaa soo isgalaya waxyaalahaas haddana in ay yihiin waxyaalaha daruuriyaadka ah oo usii dhaadhacaya dhar iyo hooy in la helo. kadibna dhanka kale marka laga eegayo waxay noqonaysaa in isticmaalka ama cunitaanka ama ku noolaanshaha iyo qaab isticmaaleedkiisa iyo qurxiska isticmaalka iyo waxa la yiraahdo qaabaynta design in loo sameeyo, jihayn loo sameeyo oo abuurkiisa loo hagaajiyo. halkaa kadib marka waxaa soo gelaya markii wixii alaabtii lagu cuni lahaa, cuntadii alaabtii lagu cuni lahaa, gurigii alaabtii laga samayn lahaa, dharkii alaabtii laga samayn lahaa, qofkii marka in ay intaasu jiraan oo la helayo. kadibna waxaa imanaya waxa la yiraahdo macnaha triple R baa ugu weyn, laakiin waxay noqotaa triple R. waa saddex lagu dhiftay oo ra way bilowda noqdaan. waxa ugu horeeya marka saddexda ugu horeysa waxay noqonaysaa waxa la yiraahdo renewing, repairing and recycling. waxay tahay wixii dib loo cusboonaysiiyo, wixii la hagaajiyo, la susubiyo, la kabkabo iyo wixii mar labaad inta la warshadeeyo mar labaad la soo celiyo. kadibna waxaa markaa laga maarmaan oo intii ka horreysay ku jirta nadiifinta shayga in la nadiifiyo iyo in la dhowro oo la ilaaliyo. waa qalabkii wax lagu cunayey, qalabkii wax lagu sameynayey, qalabkii guriga oo ka mid yihiin wax alla waxa guriga ku dhex jira uu ka dhisan yahay oo ku dhex jira iyo waxa qofku uu xiranayo oo dhar iyo kaba iyo ah iyo markaas wixii alaab oo wax lagu cunayo ah. intaasoo dhan baa waxa ay asal u yihiin dhaqaalaha. intaa iyadaa ee dhaqaalaha asalka u ah baa marka waxaa la rabaa in ay guriga ay u diyaarsan yihiin oo xaadir ku yihiin. si ay guriga xaadir ugu noqdaan baa waxaa laga maarmaan noqonaysaa in marka qofkaasi uusan intaa iyada ah meel kale kasoo baryeyn, meel kalena kasoo beecsanaynin, balse ay gurigiisa ka yimaadaan. taasi waxa ay tahay marka dhaqaalaheena Soomaalidu markii aanan magaalada baranin waxa uu ahaa dhaqaalo fiican, waayo intaasoo dhan gurigeenaan ka dhexeli karnay. waxaan samayn jirnay in aan wax uu gurigu ka kooban yahay oo dhan oo dhig iyo dhigdhexo iyo udub iyo raar iyo daha iyo ku darishad la geliyo iyo afaafkan la dhigo intaba waxa ay wax annagu aan gacanteena ku samaysano, guryaheena marka aan ka samaysano, dhirteena ka samaysano, gurigeenana sidaa u dhisano. sidoo kale qalabka aan gogolanayno hadduu derin yahay, hadduu si kale yahay, kulli ayagana waxaan ka samaysanaynay dhirta gurigu noo yaalay. sidoo kaleto qalabka wax lagu cunayo oo dhan haddii uu yahay mid cunto loo isticmaalayo ama lagu karsanayo, hadduu xataa digsiga yahay, kulli annagaa samaysanaynay oo xeerada iyo fandhaalka iyo kulli waxa aan kuwa aan gacanteena ku samaysano, aan dhirteena ka samaysano. sidaas baan isugu jaan go'nayn. wixii la xiranayana hadday tahay marka qalabka kale ee guriga loo isticmaalayo, midkii derintii hadday tahay, midkii kale oo qaab kale loo dhiganayo, iyagana kulli waxaan kuwa aan isticmaalayn annagu samaysano. dharka qofku xiranayo badankood waxaan dhar aan samaysano oo dharka alindiga la dhaho. waxaa markii horeeto Soomaaliya ka qaadan jiray oo maanta wadanka adduunka wax farsamada ugu badiya
oo jabaanka la yidhaaho jabaanku qarniyo horeeto iyo hindida iyo kulli dhulkayga ay imaan jireen dharka alindiga ayay naga qaadan jireen kadib bay waxay barteen sida loo sameeyo markay sida loo sameeyo barteen ayay maanta dib marka annaga inoogu sameeyaan oo maanta waxaa marka aan haysataa dadkeena Soomaaliyeed ama ummadda ku nool khaliijul carab iyo agagaarkiisa iyo bariga Afrika oo dhan in shay kasta xagga looga soo sameeyo hadday guluuskii tahay hadday qaadadii tahayba oo markaas haddana dharka aan aadka u xiranno oo ka mid yihiin macawisaha iyo cimaamada iyo koofiyadda kulli waxaa lagu sameeyaa Japan iyo Shiina ayaa lagu soo sameeyaa taas marka waxay na dhaxal siisay in aan dib u noqono dib u noqoshadaas baa marka waxaa loo baahan yahay in aan ka soo noqono oo aan xaggii asalkeennii oo laakiin qaab magaalo ah aan u soo noqono qaabkaas magaalada waxay tahay marka in aadan gurigaaga waxa yaala aysan ahayn wax aad meel kale ka keento ama kasoo baridaya ama kasoo beecsatayaaba aysan noqon ay yihiin wax gurigaaga aad ka dhex samaysan karto markaas kadib baad marka dhaqaalihii sida ugu fakari kartaa haddaba sidee loo sameeyaa si loo sameeyo waxa ugu horeeya oo asal u ah marka guriga dhaqaalaha guriga la eegayo waxyaalaha ugu horeeya waxay tahay ee jaamacadaha lagu dhigo in aad tahay qof aan xoolo mubadar ahayn wax firdhinaynin aadna ahaato qof aan macangaga oo jiqana aadan noqon balse aad dhexdhexaad ka noqoto sidaas baa jaamacadaha home economics lagu baraa ama marka la dhaho sustainable economics dhaqaalaha daa'imiska ah ee soconaya sidaas baa isagana uu yahay asalkiisu kuwaas marka qaabkaas jaamacadaha lagu dhigo oo dhan oo saas asalka u ah xageeba ka timid wax ay ka timid quraankeena bal akhri suuratul israa marka aad suuratul israa aayadda ku jirta aayado saddex oo ku jiro isku xiga aad akhrisato ama ilaa iyo dhowr iyo 10 aayadood isku xiga oo ku noqonaya haddii si loo eego kuwa macnaheedu diiniin laga horeeyay ay qabaan oo kale oo 10 commandments la dhaho kale bedelkeeda iyagu noqonaya ama la mid ka ahba waxa aayadahaas marka ugu horeeya بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأت ذا القربى والمساكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وحوي إلهي وحوليه سي حقه ذا كوا محايته كودو أهل قرابة هذا حقه ذا سي قرابة هذا تذكأه in xaqooda si macnii wax ka sii xoolaha aad haysto dadka ehelka ku ah iyo dadka masaakiinta ah iyo dadka socotada ah intaa marka aad siiso laakiin siinta aad siinayso yay noqon gacan firdhis qof saa u firdhinaya ha noqonin ilaah waxa uu leeyahay marka wala tubadir ha noqon midka saa u firdhiya lacagta oo uu hantidiisa kala firdhiya tabdiiran firdhin saa'ida kala firdhinaya waayo maxaa yeelay in xaqiiqadii almubadiriina kuwa mubadiriinta wax firdhiya كانوا waxay ahaadeen ikhwaan shayaadiinta walaalahood weeye oo dhaqanka shayaadiinta weeye kaasi in wax la iska firdhiyo aan loo aaba yeelinin oo mabriwe imaan caawad qadin aan loo aaba yeelin ee loo kala firdhiyo وكان الشيطان لربه كفورا شيطان كنا مركو waxa uu ahaaday rabbigiisa mid ku kufriya aayadda sii soco wa ima tu'ridan anhum ibtiqaa rahmatan min rabbika وترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إلى وحو لي قيبت دبا آيادا هكذلك أنت هذا مغلولة مدحر حران قرطة سأو حران هكذلك oo macnaheedu adiga iyo dhan ha iska dhigin macnaha qof shil uusan ka bixin labada gacmood saas qorta ugu xiran saas ha noqonin ولا تبسطها هنفردين ساسا أو فردين كل البسط فردين وعندنا كفردين كعنت هذا واحد كتيرة فتقعد ملوما محسورا ومركا على النقطة من عيرتوبي أو من الله كباهر الله سوفر يستا سيدا سعادة نمقنن مركا انتاس وإلهي نوشيغي انتاس ويا انت جامعة home economics lagu dhigo oo la sii balbalaariyo intaas weeye inta maadada la dhaho sustainable economics ama sustainable natural resource oo la dhaho sida loo isticmaalo waxyaalaha macnii hantida iyo waxba ilaha dhaqaalaha loo isticmaalo ayaga oo la cirib tiraynin ee sii socda sidaas la rabaa waxa la rabaa marka qofkii wixii inuu tashiisho eeshado nidaamsado
Soomaali horena waxa ay ku maamahadi jirtay oo hadda maamahooyinka dhamaanaya ka mid ah balse loo baahan yahay oo muhiim ah waxay tahay Soomaalidu waxay dhihi jirtay wax matoshe matashiishe iyo matashade waxa ay dhamaadaan maraduuga horteed ma qofka matashaan guluuskiisa aan tolanayn shaarkiisa aan tolanayn markuu shaarka meel yar guluus ka dilacatooraya shaarka iyo matashiisha qofka aan shilin isgaarsiinayn wixiisa isku xilxishanaynin iyo midka aan tashanaynin kuwaasi mara duuga oo mara awalba dhammaan rabtay intaysan dhammaan ayuu isaguna dhammaadaa oo finish noqdaa taasoo dhan oo marka sidaa meesha ku jirta ayaa waxaa loo baahan yahay in reer walbaba qoys walba waxa ay muhiim u ah in ay helaan qof u yaqaana home economics waxa guriga dhaqaalaha guriga qof u yaqaana ayaa maanta qoysaskeenu ay badan aad ugu baahannahay iyo qof u yaqaana nutritionka nafaqaynta cuntada nafaqada leh ee la cunayo iyo qof u yaqaana caruurta sida loo tarbiyo oo looga dhigo kuwo miro dhal ah oo wax soo saara saddexdaa qof oo mutakhasisiin ah waa muhiim bay u yihiin qoys kasta oo Soomaaliyeed maanta meel kasta uu joogo si loo helo dhaqan dhaqaale suuban oo marka caruurta la tarbiyana ay ku koraan dhaqan wanaagsan oo dhaqaale abuuraya oo nidaam abuuraya qofkaana marka uu noqonayo cuntada uu cunayo uusan cuntadan u cunin macaanka ay leedahay iyo wax la mid ah iyo hebel baa cunay oo faan baa reer hebel baa cunay ama qof hebel baa cunay ee aadna faan ahaan u cun in uusan u cunin balse uu u cuno maxaa nafaqo ah ee kaasoo galaya marka waxaa laga yaabaa cuntooyinka nafaqada leh inay ahaadaanba kuwa ugu raqiisan oo qofkii ay lacag badan ay u badbaado midda lacagta dhaqaalaha waxa aad marka waxyaalaha qaybta aan taabanayo oo Soomaalida naga hadlaysan waxay tahay xagga dumarkeena aan ku bilaabo ha joojiyeen lacagaha uga baxa dhammaan waxa la dhaho make up oo macnaheedu tahay qalayn wax oo ka dhimana inaad isku kabto marka wax ka dhiman gabaray ma jiraan ha iskabin waad kaban tahay sidaada Allah ku kabay kabistaada ku raali ahow marka waxyaalaha rinji la ismariyo ah timal la isku dhajiyo ah indho la isku dhajiyo ah carab la isku dhajiyo ah gadaal la isku xiro ah waxaas oo dhan lacagaha ku baxa waa in kow ay gabadhaas badbaadisaa laba waa in la badbaadiyaa lacagaha ku baxa gabdhaha guurka oo lacagta waalida ah lacagta sooriyada ah lacagta qurxiska lacagta heblow ah kuwaas oo dhan in la joojiyo oo la yareeyo oo la xadido waa muhiim waxa kale oo muhiim ah nimanka midooda marka loo dhaadhaco in ay joojiyaan lacagaha ay ku bixinayaan makhaayadaha shaah laga cabo ee fadhi ku dirirka ah inkastoo makhaayadda iyadana inay lacag samaysan la rabo laakiin waa in baahi looga cabaa oo ay daruuriyaad noqotaa waa in markaas waxa qaad iyo daroogo iyo lagu cuno taas xaaraan iyo waali xad dhaaf weeyaan waa in la iska ilaaliyaa qof hadduu marba heerkaas gaaray oo arrintaas xumaantaas ay gaartay intaas oo dhan marka uu qofku dhowro waa in aan iska ilaalinaa dhaqanka ah hebel uu gacan furan yahay oo saas u firdhinayaa qof saa u firdhinayaa qof yow ma ahan waa qof asagii ilaahayna uu quraankiisa aad ugu caayay oo aad ugu sheegay oo kaanu ikhwaana shayaadiin u jiray shayaadiintay la walaalayihiin qofka noocaasa inaanan quruxsan annagu oo qiimaysanin balse aan qiimayno qofka xoolihiisa ku xisaabtama taana aanan u dhaadhicinin in aan gacanadayna jiq noqonnana aanan u dhaadhicinin intaas ayaan maanta barnaamijkan inta qaybtiisa koowaad ku gabagabeynayaa waxaan rajaynayaa usbuuca dambe haddii Allah awoodda leh ka raali aado in aan u dhaadhaco waxyaalaha aan gobol walba oo Soomaaliyeed waxa ka bixi kara iyo waxa laga heli karo oo khayraad ah iyo sidii aan uga faa'iideysan lahayn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh